halkan waa garoonka kubadda cagta ee Axmed Dayne magaalada Buux waxaa si habsami leh u socota calaamitada xulka gobolka Buuhoodle u matalaya ciyaaraha gobolada Soomaaliya uu qabanayo dhamaadka bishan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay tababarka socda macalinka gobolka Macalin Absalaan Maydhane dhanka kale ayana waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyarada isboortiga ee u matalaya magaalada Buuhoodle ciyaaraha gobolada Soomaaliland iyagoo u mahadceliyay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland iyo siduwaha gobolka magacaygu Absalaan Maxamed Cabdiqani loona garoon yahay Macalin Maydhane sadogtiinba waxaan bilawnay oo muddo banoo socday tababarkii xulka gobolka Buuhoodle oo aan ugu jirno diyaar garowga koobka gobolada bishan dabayaaqadeeda dhici doona mataqaana waxaan ugu mahadcelinayaa cid kasta oo dhiirigelin ka geysatay ama muxuu isku hawshay inaan u diyaar garowno ama ay nagala qayb qaataan diyaar garowga gobolka waxaan in leenahay halkan aan fariin ugu gudbinayaa bahda iyaduna dhalinyarada ama isboortiga ee gobolka aan hayn kaliya maaha gobolka ma matalayaan inta kaliya la xulay idinkana waxa laga baahan yahay inaad garab istaagtaan oo aad dhiirigelisaan oo aad taageertaan halkan waxaan ka salaamayaa wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Boos Miro Maxamed siduwaha dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Mas'ud Cabdirasaaq aniga ku hadlaya afka dhalinyarada isboortiga gobolka Buuhoodle gaar ahaan ciyaartoyda loo soo xushay xulka waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Boos Miro iyo siduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Cabdirasaaq ka dhalinyar ahaan anoo ku hadlaya ciyaartoyda loo matalaysa xulka gobolka Buuhoodle waxa training noo socday maalmahanba annagu nooga socday garoonka caalamiga Axmed Dayne Stadium waxaan ku jirnaa diyaar garowgii ugu dambeeyay aan ugu diyaar garoobna koobka dabayaaqada bishan ka furmaya caasimadda dalka ee Soomaaliland waa bishaar waxaan ka mid ah ciyaartoyda matalasa gobolka Buuhoodle waxaan wadnaa diyaar garowga aan ugu diyaar garoobanay koobka Soomaaliland waxa aad u mahadsan isku duwaha gobolka Cabdirasaaq waxaan wadnaa diyaar garowga aan ugu diyaar garoobanay koobka Soomaaliland ilaahay baana mahad iskale waxaan rajaynayaa insha Allah gobolkan sanadkan inaan guul u soo gudbi doono hadii la haydmo waxa aad u mahadsan oo kale macalinka gobolka Absalaan Maydhane oo training fiican siinaya insha Allah sanadkan trainingkiisa aan meel insha Allah rabnaa ku gaarno Cabdinuur Maxamuud Amin Daada waxaan ahay ciyaaryahan kamid ah ciyaaryahanada gobolka Buuhoodle ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala maanta oo bishu 6 tahay Cable TV waxay nagu soo booqatay xirada tababarka waxaan ku jirnaa diyaar garowgii koobka gobolada Soomaaliland wasaaradda isboortigu ay shaacisay 18 Oktoobar 2020 ay ka bilowmi doonaan magaalada Hargeysa waxaan u mahadnaqayaa isduwaha wasaaradda isboortiga gobolka Buuhoodle Cabdirasaaq iyo wasiirka wasaaradda isboortiga Boos Miro waxaan rajaynayaa insha Allah gobolkayga waxaan rajaynayaa inuu meel wanaagsan gaarsan Maxamed Gunre telefishinka caalamiga Cable Buuhoodle